weerarkii 7 Oktoobar ay qaadeen muqaawamada Falastiiniyiinta ayna ku qaadeen daboolka marinka Gaza ayaa maanta waxa uu buuxsamay hal sano guuradiisii kaas oo ay dagaal kula jiraan guumeystaha. Haddaba maanta muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalkii bilowday 7 Oktoobar 2023 maantadan heerka uu marayo dagaalka maadaama aynu arkayno dagaalka inuu ku faafay bariga dhexe oo dhan. Waxaa ku soo biiray dagaalka Lubnaan, Ciraaq, Syria iyo Yemen iyo sidoo kale waxaa ku soo biiray dalka Iran oo ah quwad weyn oo ka jirta bariga dhexe. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalka xatan heerka uu marayo. Waxaynu kale ku soo qaadan doonaa dadkii ugu muhiimsanaa ee laga dilay muqaawamada Falastiiniyiinta. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad horey nala joogteena fadlan muuqaalka like saar oo la wadaaga asxaabtaada. Weerarkii bilowday 7 Oktoobar ee sanadka 2023 waxa uu muujiyay geesinimada iyo dhabar adeeg ay leeyihiin muqaawamada Falastiiniyiinta kaas oo reer galbeedka iyo guumeystahaba tusiyay awood ay leeyihiin maadaama reer galbeedku markii uu bilaabanayay dagaalka marinka Gaza ay soo daabuleen hub noocyadii ugu dambeysay ayna u keeneen guumeystaha kaas oo ku duqeeyay meelaha ugu muhiimsan oo ay degan yihiin shacabka sida isbitaalada iyo iskuulada kaas oo sababay dhimasho ku dhawaad 41,000 oo Falastiiniyiin ah muddo hal sano gudaheed. taas oo reer galbeedku ku noqotay mid la yaab ku noqota maadaama ilaa hadda ay laasan yihiin meesha uu ku jiro Yaxya Sinwar ninka ugu sareeya muqaawamada Falastiiniyiinta kadib markii uu dhintay ninkii ugu sareeyay Xamaas ay Ismaaciil Haniya kaas oo lagu dilay dalka Iran. Kadib waxaa bedelay ninka loo yaqaano Yaxya al-Sinwar kaas oo ilaa haatan laasan yahay meesha uu ku jiro. Guumeystaha dagaalkan markii uu bilaabanayay waxa uu dejistay dhowr qorshe oo ugu muhiimsan yahay inay soo cistaan maxaabiistoodii sidoo kale tan ay khaarijiyaan madaxda ugu sareysa ee muqaawamada Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto inay marinka Gaza ay ka dhigaan meel amni ah oo mar dambe guumeystaha uusan kala kulmin wax dhibaato ah. balse maantadan aynu joogno waxaynu u jeednaa in hal sano kadib uu guumeystuhu ilaa hadda uu awoodi laasan yahay inuu maareeyo dagaalka si uu u socdo maadaama muqaawamada Falastiiniyiintu ay isticmaalayaan dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ah taasoo ciidanka guumeystaha gelisay jahwareer dhanka looga imaaday iyo dhanka laga baxay ay garan waayaan taas oo muqaawamada u saashay inay noqdaan kuwa dagaalka ku sareeya marinka Gaza. waxaa ka taagan xaalad bani'aadantinimo taasoo ay geysteen ciidanka guumeystaha maalinkii uu bilowday dagaalka Falastiiniyiinta iyo guumeystaha u dhaxeeyo. wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant ayaa ku dhawaaqay in marinka Gaza ay ka xiri doonaan biyaha, cuntada iyo korontada kuwaas oo aasaasi u ah nolosha bani'aadantinimo. guumeystuhu ma uusan kala soocin ragga iyo dumarka iyo sidoo kale carruurta kuwaas oo ay ku duqeeyeen meel walba ay joogaan. dadkii ugu muhiimsanaa oo ay iska dileen muqaawamada iyo guumeystaha waxaa ugu sareeya dhanka Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya kaas oo ahaa madaxii ugu sareeyay ee dhanka wadahadalka ee ururka Xamaas iyo sidoo kaleeto saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa guutada ayaa la dilay intii uu socday dagaalka halka guumeystaha isaguna laga dilay ciidamo fara badan iyo saraakiil muhiim u ah ciidankiisa balse inta badan waa uu qariyay isagu jugta gaartay maadaama ciidankiisu ay yihiin kuwa mar walba u fudud inay dagaalka ay ku niyadjabaan taas oo guumeystuhu uu ku qasbay in Aljazeera laga xiro guud ahaan meesha uu degan yahay guumeystaha taas oo ku sababtay in inta badan ay qariyaan jugta soo gaartay. balse muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa soo bandhiga inta badan muuqaalo ay ka tarjumayso iyagoo baabi'inayo ciidanka guumeystaha halka aynu ku aragno maalin walba Aljazeera iyadoo soo qaadanayso muuqaalo oo ay soo dhigaan Falastiiniyiinta kuwaas oo muujinayo dagaalka ay kula jiraan ciidanka guumeystaha. dagaalka u dhaxeeyo ciidanka guumeystaha iyo muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa waxa uu gaaray heerkii ugu sareysay maadaama dagaalka uu ku baahayay wadamooyin badan sida Yemen, Ciraaq, Syria iyo Lubnaan kuwaasoo dagaalka haatan si toos ugu soo biiray. waxaa kaleeto meesha aan ka maqnayn Iran
Iiraan waxa ay soo turtay 1 Oktoobar ee bishan aynu ku jirno 200 oo gantaal iyo wax ka sii badan gantaalada balaastiigga ah oo ka badan 200 ayay ku soo turtay dhulka uu degan yahay guumaystaha, taas oo gaarsiisay guumaystaha jug aad u culus maadaama la bartilmaameedsaday garoomo muhiim ah iyo saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidanka guumaystaha. Maadaama dagaalkii uu ku baahay bariga dhexe oo dhan, hadda waxaa laga cabsi qabaa in la wada aado dagaalka saddexaad ee adduunka, maadaama Ruushka uu ku soo gurayo hubkiisa dalka Iiraan iyaduna ay gashay diyaargarowkii ugu dambeeyey. Haddii uu guumaystuhu soo jawaabo, inaguna way ka jawaabi doonaa, saas ayay dhaheen, taas oo sababi doonta in adduunka la wada aado dagaalka saddexaad ee adduunka. Ninka hogaamiyo ee guumaystaha Netanyahu, kaas ayaa rabo in dagaalka uu ku baaho bariga dhexe oo dhan, maadaama isagu uu doonayo inuu xilka sii haysto. Haddii uu joojiyo dagaalkan ka socda bariga dhexe, waxaa la geyn doonaa isaga maxkamad, taas oo ku sababi doonta xabsi daa'in ilaa uu ka geeriyoodo. Isaguna taas ma doonayo, maadaama uu arkayo inuu dagaalku uu ku baahin karo bariga dhexe oo dhan. Ilaa waxa uu sugayaa intay ka dhici doonto doorashada Mareykanka ee November sanadkan aynu ku jirno. Muqaawamada ka dagaalama dalka Lubnaan ee loo yaqaano Xisbullah, kuwaas oo la gaarsiiyey jugtii ugu xumeed maadaama laga dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa guutooyinkooda, balse waxa ay haystaan guutada ugu sarreysa ee loo yaqaano Ridwan, kuwaas oo tababar heer sare qaba. Ciidanka guumaystaha waxa ay ku dhawaaqeen inay Lubnaan ku gali doonaan ciidan dhanka lugta ah, balse waxaa ka hor imaaday guutada Ridwan, kuwaas oo halis ku ah ciidanka guumaystaha, balse waxa ay gaarsiiyeen jug aad u weyn. Ilaa haatan ciidanka guumaystuhu waxay awoodi la'san yihiin inay galaan dalka Lubnaan, balse ilaa haatan waxa ay wadaan duqaymo dhanka cirka ah oo ay fulinayaan diyaaradaha F-35 iyo F-16, kuwaas oo ay ka soo qaateen dalka Mareykanka. Muqaawamada ka dhisan dalka Yemen ee loo yaqaano Ansaarullah, kuwaas oo haysto gantaalo balaastiig ah iyo ciidamo aad u tababaran, kuwaas oo u diiday inay badda cas soo maraan maraakiib oo u socda dhanka guumaystaha iyo dhanka reer galbeedka, kuwaas oo haatan badda cas ku haysto si xoog ah. Balse Mareykanka iyo guumaystuhu mar walba waxay duqeeyaan meelaha ugu muhiimsan ee ay leeyihiin kooxda loo yaqaano Ansaarullah, balse iyagu waxay dhufeysyo ku leeyihiin buuraha hoostooda, maadaama meesha ay ku sugan yihiin ay u badan tahay buuraley. Mar walba guumaystuhu waxa ay ku tuuraan gantaalo balaastiig ah iyo diyaarado drones ah, kuwaas oo mararka qaar uu qabto nidaam difaaceedka guumaystaha, mararka qaarna uu ka baxsado heer uu gaarsiiyo jug aad u culus, kuwaas oo shacabka guumaystaha ku qasbay inay ka cararaan dalka guumaystaha. Balse maanta waxay u kala carareen dalalka reer galbeedka, kuwaas oo ay u raadsadeen nabadgelyo, maadaama guumaystuhu ay ku socdaan gantaalo ka yimaaday dalka Syria, Ciraaq iyo sidoo kale Lubnaan iyo Yemen, kuwaas oo gantaalo balaastiig ku tuura mar walba dhulka guumaystaha, taas oo shacabkii gelisay argagax aad u weyn. Daawade, haddii aad fiirisid dagaalka ka socda bariga dhexe, sidee ayuu ku dambeyn doonaa? Fikirkaadi waa muhiim ee ka dhiibo dhanka hoose ee komentiyada. Muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad horey nala joogtayna muuqaalka like saara oo la wadaaga asxaabtaada. Inta aynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.